magaalada Kismaayo waxaa maanta kulan ku yeeshay xildhibaano wasiiro salaadiin ka xumaaday hadal dhawaan ka soo yeeray xildhibaan Daahir Aamin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay in Daahir Aamin Jeesow uu ka xun yahay wada hadallada u bilowday Jubbaland iyo dowladda dhexe ee lagaga hadlayo xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland, ayagoo sheegay xildhibaanka deegaan ahaan in aan laga soo dooranin Jubbaland. Waxaana dhanka kale xildhibaanka ku dhaliileen in warar aan jirin uu ka sheegay Jubbaland, ayagoo sheegay Jubbaland in ay tahay meel hormuud u ah dowladnimada Soomaaliya isla markaana dad gaar aysan degin. Xildhibaan Cabdiqaadir Cismaan Maxamed wuxuu ka mid yahay xildhibaanada dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay in ugu horeyn uu raaligelin ka bixinayo safarkii ra'iisul wasaaraha uu ku imaaday magaalada Kismaayo, taasoo uu sheegay in warar been abuur ah laga sameeyay. waxaan raaligelin buuxda ka bixinayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Jubbaland. sidoo kale waxaan raaligelin ka bixinayaa booqashadii ra'iisul wasaaraha ku yimaaday Jubbaland oo uu gafay xildhibaan Aamin Jeesow. runtii waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago una sheego Aamin Jeesow waxaa ka mid ah hadalkii qalbi dhagax oo la dhiibo waa ninkii shakhsiga kaliya yiraahdo in qalbi dhagax la dhiibo waa sax. sidoo kale bangiga dhexe oo aad ogtiin arrintiisa ishigu taagneed ninkii yiraahdo gaal cadaan iska dhaafay gaal madow loo dhiibo waa ninkii yiraahdo. intaa markii laga soo tago hadalkii darad ka soo yeeray oo ah Jubbaland yahuud baa haysata macnaheedu waxa waaye waa qeyr mas'uulnimo meesha ugu hooseysa hadduu asaga yacni dan iyo deegaan ka hadlayo deegaanku asaga matalay Hirshabelle maalin kasta nimanka argagixisada dad ku laayeen qowracaan kamana hadlo. Jubbaland horumarka ay gaartay wada hadalka ay dowladda dhexe la furtay iyo tilaabada horumarka dhibayso waa nin xaasid ah. ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegi karaa ninkaas waa qeyr mas'uul hadal ka soo yeeranay ma aragtay raaligelin buuxdan ka bixinayna Soomaaliya oo dhan yaana hadalkiisa ma aragtay dhag jalaq loo siino. xildhibaano wasiiro iyo salaadiinta Jubbaland ayaa iyaguna dhaliilay hadalka Aamin Jeesow. haweeye ninku caan baxay corruption marka hadalladan uu meelaha ka leeyahayna waa hadee qofka din islaam ah oo muxuu ah xildhibaan ah oo mabda' leh hadalka hadda ka soo baxay kii ugu dambeeyay kuma hadli karo. anoo ah muxuu ahaa xildhibaanada Jubbaland ka mid ah magaceena Ismaan Bistoole la yiraahdo waxaan ummadda reer Jubbaland guud ahaan muxuu ahaa aan ka raaligelinayaa hadalka gifka uu ku hadlay mas'uulkaas qofkii mas'uul sheegana weey waayo dadku waxa fiican markii muxuu ahaa waxyaabaha uu ku hadlay inay u miisaanaadaan. waxaan raaligelin ka bixinaynaa odayaasha dhaqanka Soomaalida degan Jubbaland madaxweynaha ku xigeenadiisa golaha wasiirada aan ka mid ahay golaha full baarlamaanka sharci dejinta dhammaan qof kasta oo reer Jubbaland ah iyo guud ahaan muslimiinta oo dhan waxaan ka raaligelinaynaa warka ka soo yeeray Daahir Aamin Jeesow oo la yaab leh oo runtii hadda ka horna warar saas oo kala ah oo diinta islaamka ka baxsan ayuu ku hadlay. waan ogtihiin adduunka oo dhan waa laga ogyahay nin kasta oo dhagtiisa ay ku dhacday xildhibaanka wuxuu sheegay ay dhagtiisa ku dhacday waxaan kaga dhileed garaynaynaa meeshan waa horyaalka nabadda waa Jubbaland haddii ay ahayn mataqaanaa waxa uu sheegay haday tahay horyaalka ma noqon lahayn nabadda ma noqon lahayn. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo.